السلام عليكم صاحبي قيمة يقايا بدن فضلا هديت ku subtay channelka subscribe noo saar siina share garay waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka channelkeena Ilyas Ali Abdi barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa suuxunta duusha ee kooxda kubadda cagta Arsenal haddii aad awal u taqaanay gaan rayska haatan waa laga bedelay waxaa loo bixiyay suuxunta duusha Arsenal waxay noqotay kooxda kaliya ee taariikh kaligeed iska jibiso Arsenal rikoorkan oo 8 kulan isku xigta aan marna dhinaceeda la dhigin si la mid ah 4 kulan oo Champions League ah hal gool laga dhalin hal kulan draw gelin rikoorkaas waxa uu yeelay Arsenal haddana waxa jibiyay isla Arsenal yani taas waxay ka dhigan tahay Arsenal ku day Arsenal waxay sameeyeen Arsenal bis gudi karta Arsenal haddii aan ku dhaxo sanadkan Arsenal waa kooxda ugu fiican horyaalka Premier League alayla taas beenan ku sheegay Arsenal waa kooxda ugu fiican dunida waqtigan aanu joogno Gunners waxay ciyaartay gabi ahaan 8 kulan ee ugu dambeeyay oo Arsenal ciyaartay Premier League iyo UEFA Champions League dhammaan 8 kulan Arsenal wax gool ah lagama dhalin wax gool dara ma gelin wax draw ah ma gelin si la mid ah Gunners waxay dhalishay 17 gool ah hadda aan kugu celiyay Arsenal 8 kulan ugu dambeysay ee iyada ciyaartay waxay dhalisay 17 gool wax gool ah lagama dhalin si la mid ah kulan draw ma gelin ama bareejo kulan gaashina ma jirto waa kooxda rikoorkeeda uu yahay sanadkan 100% dhanka UEFA Champions League Arsenal waxa soo labeeya kooxda kubadda cagta internationality ama Inter Milan saddex kulan oo Champions League ay ciyaartay Inter Milan wax gool lagama dhalin wax gool daran lama kulmin waxay ka sameeyeen rikoorkaas Arsenal waxa u dheer xalay kulanka ciyaartay mar kale shabaqeeda ilaashatay 3 gool oo nadiif ah iyo 3 dhibcoodna mar kale qaadatay hardanka Arsenal iyo Inter Milan midkee ku dambeyn doona teesa ka dhici doonta Inter Milan xalay ma aysan ciyaarin kulankeeda UEFA Champions League waa caawa farda jooga iskuma faanay Arsenal jawaalkeed mar hore fashay way ka gudubtay examkeeda Arsenal xalay waxay ciyaartay iyadoo xidigaheeda kuwooda ugu muhiimsanaa dhaawac ay ku weysay kulankan waxaana kulankaasi ka maqnaa Kai Havertz, Nuno Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Martin Odegaard iyo Salami weeraryahanka dhawaangalka ee Arsenal haatan ku duusho ninka lagu magacaabo Victor Gyökeres ayaana la saadalinaya xitaa inuusan qayb ka ahayn kulanka Sunderland oo haatan soo aadan Gunners in ciyaari doonto maalinta Sabtida dhammaan xidigaha kooxda Arsenal waxay seegi doonaan kulanka Sunderland waxaana ka hor imaan doona hogaamiyahooda ruuxiga ah ee Granit Xhaka ayaa mar kale wuxuu ka hor imaan doonaa xidigihii saaxiibadiisa iyo kooxdiisa hore ee Gunners waa markiisa labaad tan iyo Granit Xhaka markuu ku biiray kooxda Bayer Leverkusen oo uu soo guuleystay horyaalkiisa ugu horeeyay iyo kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen horyaalkeeda ugu horeeyay Granit Xhaka uu ansixiyay kooxdaas ayaana ilaa ay haatan ugu maxdaysa guusheeda iyo koobkeeda ugu horeeyay kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Switzerland Granit Xhaka ayaa haddana wuxuu imaaday kooxda Sunderland oo sanadkan ka timid heerka hoose ee horyaalka Championshipka taas oo u soo dhaadhacday horyaalka English Premier League qaybtiisa koowaad Sunderland haatan aan ku sheegay waxay ku jirtaa top 4 waxayna ka sare martay dhowr kooxood oo waaweyn sida Chelsea, Man United haatan kooxda ka qiimo badan waa Sunderland waxay ku jirtaa afarta ugu sareysa ee horyaalka Premier League Granit Xhaka waa nin la yaqaano wacdarihiisa iyo bandhigiisa ajiibka Arsenal waxayna diyaar u tahay inay soo dhaweyso halyeeygeeda hore ee Granit Xhaka oo wareysi bixiyay wuxuu sheegay waxay ii tahay wax ajiib ah mar kale inaan wajaho Gunners kooxdeeda Arsenal waxay ahayd riyada aan ugu jeclaa dunida wuxuuna ahaa waqti fiican oo aan ku raaxaystay tan iyo 16 ilaa iyo 2021 laakiin
waqtigeena kala dhammaaday darteed ayaan ugu dhaqaaqay. Arsenal waa koox mar walba qalbigayga ku jiri doonto. Taageerayaasha kooxda Arsenalna waan jecelahay dhammaantooda. Tani waa fariinta ka timid Granit Xhaka, halyeygii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal. Granit Xhaka kulankaas ma ahan kulan fudud, waa kulan special ah, wuxuuna qaas u yahay dhammaan dadka jecel kubadda cagta. Markaan ku leeyahay Sunderland oo waqtigeeda ku jirto iyo Arsenal oo dhaawacyo xaleeleeyay markay isqabtaan, mucaaradka dhammaantood waxay dhigan doonaan gambirkooda. Laakiin lama saadalin karo kulankaasi, waa laba derbi oo laisku daayay. Granit Xhaka asiga oo ka tirsan Bayer Leverkusen markuu soo booqday geegada Emirates Stadium ama kooxda kubadda cagta Arsenal, wuxuu la kulmay guuldaro xanuun badan oo loo saariyay. Haatan waa markii labaad oo Granit Xhaka ka hor imaan doono kooxdiisa kubadda cagta Arsenal. Hata aan kuu sheegay, tani ma ahan Bayer Leverkusen, waa kooxda Sunderland oo birta ka adag. Taageerayaasha Arsenal diyaar ma u tihiin inay soo dhaweysaan mar kale Granit Xhaka inay wajahdaan? Taasina wax fudud ma ahan. Ha yeeshee Granit Xhaka iyo Gunners mar kale waxaa la leeyahay fooday isdari doonaan isbuucan. Arsenal kaliya waxay heli doontaa laba weeraryahan kulankaas ee Sunderland. Labadaasna waa cid kale maan Leo Trossard iyo si lamid ah xidiga Bukayo Saka oo haatan ah kabtanka koowaad ee kooxda kubadda cagta Arsenal kadib dhaawaca oo kooxda kubadda cagta Arsenal haleelay darteed waxay ku weysay Gunners-ka dhaawacaas waxay ku weysay xidigeeda ama kabtankeeda koowaad ee xulka Norwich iyo kooxda kubadda cagta Arsenal Martin Odegaard. Haatan kabtanka kooxda kubadda cagta Arsenal ama hogaamiyaha ruuxiga ee kooxda kubadda cagta Arsenal waa ninka lagu magacaabo Star Boy ee Gunners u yaqaanaan ee Bukayo Saka, kaas oo ku jirin sanadkan waqtigiisa fiicana. Bukayo Saka wuxuu ku jiraa waqtiyo xun, ciyaaryahan walba wuxuu leeyahay waqtiyo xun. Haatan Bukayo Saka iyo si lamid ah xidiga Mohamed Salah oo loo saadalinayay labada garab ee ugu fiican horyaalka Premier League sanadkan waxay qaadanayeen waqtigooda ugu xuma abad uu soo maro. Rumaysa ama rumaysani Granit ninka la yiraahdo Bukayo Saka iyo Mohamed Salah ma rumaysanaysaa sanadkan inuusan lixeen xitaa 3 gool oo Premier League midkood ma ansixin 3 gool oo Premier League iyadoo horyaalka Premier League heerkan marayo in Haaland wuxuu marayaa 13 ilaa iyo 14 gool. laakiin labadii xidig oo ajiibka ah oo garbaha ku fiicana Premier League kuwooda ugu fiicana dunida loo saadalinay haatan wax ay hayaan ma lahane ninka la yiraahdo Bukayo Saka oo waqti xun ku jiro iyo Silimida Leo Trossard oo iska si aan la saadalin karin. waxaa soo sadeexay xidiga qadka dhex kooxda kubadda cagta Arsenal ugu ciyaaro ee taageerayaasha Gunners-ka haatan u bixiyeen Ronaldo Nazario ama Ronaldo 9 ninka lagu magacaabo Mikel Merino oo xalay u ansixiyay Gunners-ka 2 gool UEFA Champions League. kaas ayaana Arsenal weerarkeeda ay ku duuli doonto noqon doonaa kadib dhaawacyada kooxda kubadda cagta Arsenal. waxaa la leeyahay Mikel Merino, Leandro Trossard iyo Bukayo Saka Gunners gaashaan ma u noqon doonaan ama kuwii burburin lahaa ee Gunners ay noqon doontaa Sunderland. Rikoorkan ambiitinka ee Gunners-ka ee la qaban la'yahay iyo shabaqa Gunners-ka oo la gaari la'yahay waxaa soo afjiri doona kooxda kubadda cagta Sunderland ama weli sideeda ay ahaan doontaa Gunners birteeda ay ahaan doontaa. Dhageysiiyay daawadayaal idinka maxaa leediin Gunners sanadkan dhinaceeda dhulka lama dhigin. xilli ciyaareedkan oo idil waxaa laga badiyay kaliya hal kulan kaas oo looga badiyay ku sheegay Liverpool ay ahayd 1 gool oo bulsiyoon ah. Gunners in gool laga dhaliyay iska daayay xitaa shoot on target sida lagu sameeyo waa wax iska adag maadaama Declan Rice iyo ninka la yiraahdo Martin Zubimendi dhaxdaas ay u taagan yihiin salami dhahana 4 dirba oo gooshiga saas u hareereysteen si lamida gacan weyn ninka gacmihiisa dhaliyaabay ee 7 gacmood miya mise 24 gacmood dunida oo dhan maanta murun ay ka keentay ninka lagu magacaabo David Ryan shabaqaasi uu isku balaariyay. Gunners-ka ma ahan koox waqtigan challenge koox gelin karto, waa quwada ugu weyn dunida waqtigan waana kooxda ugu adag dunidan waqtigan aanu joogno. dhageysiga daawade Gunners ma leedahay awood ay isaga daafacdo Sunderland iyadoo waliba dhaawacyadan ajiibka ah haystaan xidigaheeda kuwooda ugu qaalisanaa ama ugu muhiimsanaa Arsenal ay seegi doonaan kulankan Sunderland ay wajahayaan. mis leedahay Gunners waxay noqon doontaa koox sideeda ah oo weli isdaafacdo
aanan la soo koobi karin guulaheeda.